السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا سلامي أمان ومدى الصومالي سودة وادة ومع العقال إيو موضوع أني مدنانتها فكرك أن ما أنت تدو لهن محانا كبلا وين السؤال أو إسويدين مدن ولغاية وشابتي نسك سالنتهي لكن فهم كيدا أيها وحنا قبل إياه هدو إلهي إدمو عقليات بدن أو حياة بدن واقعي. سؤال waxa weeye marka aan ogaano in fikirkeenu qaldan yahay maxaan u bedeli weynaa marka aan ogaano in fikirkeenu uu qaldan yahay maxaan u bedeli weynaa dabciga bani aadamka ayaa u sameeysan in uu iska caabiyo isbedelku waa wax xasiloon darro abuura ha ahaado mid wanaagsan ama mid xun markasta oo qofku isbedel damco waxa uu dareemaa cadaadis iyo ciriiri in badan waxa aan aad ula qabsanaa qaab fikir xumadeena ilaa aan gaarno heer ah in isbedelka wanaagsan noqdo mid aan aqbali karin markaas ayaan waxaan door bidnaa inaan iska dhex joogno xumaanteena. Charles Dickens ayaa sheeko ka qoray nin muddo dheer xabsi god ku xirnaa maalintii dambe ayaa dadkii waxa loo fasax ayaa dadkii maxaabiista ayaa cafis la siiyay xabsiga ayaa laga soo saaray iftiinkii markuu arkay ayuu u dulqaadan waayay waxyaabaha iftiinka ka jira iftiinkii loo soo baxshay markaasuu oohin la dhaco maxaa kugu dhacay maxaa loo inays xabsigayga lagu celiyo anigu waxaan lama qabsan karo nolosha halkan ka jirta oo iftiinkan anigu lama qabsan karo xabsigayga lagu celiyo ninkaas wuxuu door bidahayaa silsiladii xurriyad la'aantii godkii intaasuu door bidahaya intaasoo dhan waxa u sababa isbedelka ayuu ka cabsanaya isbedelkaas dhacay ayuu ka cabsanaya waxaa sidaas lamid ah maxaabiis badan oo aad aragteen waxyaabo dad badan oo inta dembi gala oo la sii daayo haddana dembi kale soo gala maxaa saas u sameynayaan inay isla markii ay mar kale haddana ay ku soo laabtaan xabsigii ay la qabsadeen ayay wax usoo sameynayaan dembi kale isla sheekada mid kamid ah ayaa aniga isla maanteeda ay qabsatay nin aan ku qiyaasay da ahaan ilaa 70 jir meelahaas ayaan bajaaj la soo raacnay marka waxa cabayay oo u shidnaa sigaar markii aan gaariga baasha bajaaj aan soo galay waxaan ka yara codsaday inuu naga baqtiyo sigaarka markaas wuxuu igu jawaabay adiga agtaada wuxuu ka yahay sigaarku wax xun laakiin aniga xaggayga wuxuu ka yahay wax fiican marka adigu su'aal sheeko dheer waan dhex martay laakiin isla su'aalan ku celiyo waxaan ku iri markii laga soo tago sida adigu u aragtay iyo sida anigu aan u arko sigaarka cabistiisu ma wax fiican baa mise waa wax xun marka wuxuu ku jawaabay in cabista sigaarka ay tahay wax xun laakiin asagu uu maxaa la yiraahdaa uu la qabsaday uusan iska deyn karin oo balwad ay u noqotay marka waa dareemaysaa qof intaas oo sano ku jira inuu sigaar cabo oo asna dareensan inuu la xun yahay sigaarku waxun uu yahay cabistiisu oo wali hadana sii wada muhiimadu waxa waaye wuxuu iska bedeli la'ya isbedelkaas ayuu ka baqay in la qabsan waayo oo sigaar iska daaya isbedel ah in badan dhalinyadeena waxa laga yaabaa inay markii la qof sigaar cabo iyo ayagu ay si kala u arkaan laakiin dad badan oo anaga dhalinyadeena kamid ah ayaa waxa laga yaabaa inay la qabsadeen inay maalin walba shaqo isku mid ah ku soo celcelishaan wax aan noloshooda waxba u tareen inay ku soo celcelishaan oo tusaale ahaan dhalinyaro badan waxa arkaysaa in noloshooda ay tahay inay ama jaamacad intay aadaan cashar soo qaataan soo laabtaan meelaha cayaar daawadaan galbihi meelaha iska joogaan meelaha iska fariistaan kuwa xagta jaamacadii dhameeyay inay meelaha iska joogaan meelaha iska marmarayaan iska wax micnaa kala shaqooyinka waxyaabo ay isku day inay wax bedelaan wax qabtaan saas daraaddeed marka wareysatina wuxuu ku leeyahay oo maxaa la qabtaa niyo waxa aan qabana meesha ma yaalaan marka xamada inuu qofku uu isbedel kabtirkiisa ka baqayo su'aal shaqo ku celcelinayo marka muhiimadan waxa waaye inuu qofku isbedelka wax kasto oo aad isbedel u arkaysid inaan hadii ilaahay ma aan ku talaabsano baqitaanka inaan iska dhaafno waxa markaan fiiqno aan galno hore aan u galno aan aragno waxa ay yihiin ayaa waxa ka soo bixi doona hadii ilaahay wax wanaagsan laakiin wixii intaan gaarin inaan ka cabsano ayaa ah wax aan weligan ku jiri doona daqiiqada weligan aan dhex taagnaan doona hadii ilaahay marka موضوعنا maanta wuxuu ahaa
marka aan ogaan in habfikirkeenu uu qaldan yahay maxaa aan u bedeli weynaa. marka insha Allah taala waxaan filahayaa inaad aad iyo aad uga faa'iidaysato ciwaankaas. Asalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakatu.